ma ogtahay aas-aaska guusha inayna boqolkiiba 90 bini'aadanku ayna fahansanayn qofka wax kala garanaya wax u qorshaysan yihiin ee qorshayaashiisu badan yihiin wax fahansan dariiqa guusha ka warhaya ee laakiin aan ficil samayn waxa uu ka liitaa ka isagoo aan fikirinba ee waxba qaban kaas ayaa dhaamo waqtigiisa isagoo aaban iska luminba dr yaasir alxisaymi mid ka mid a muxaadarooyinkiisii arday uu muxaadaro u qabanaya wuxuu ku yidhi 2 shimbirood ayaa meel fadhiyey bahal ayaana ku soo baxay shimbirtii koowaad waxay ka fikirtay in ay duusho oo qorshe ayay samaysatay shimbirtii labaadna waa iska fadhiday marka wuxuu ku yidhi bahalkii 2 shimbirood tuu cunay badanaa waxay dhaheen wuxuu cunay tii meesha iska fadhiday laakiin runtu waxay tahay 2 shimbiroodba waa uu cunay sababtoo ah mid waa ay fikirtay midna waa iska fadhiday fikir looma baahna ee duulimaad ayaa la rabay sidaa daraaddeed nolosha heer ka gaari mayno haddii aan wax qorshaysanno wax isku dabaridno aan wax qoranno wax badan fahanno wax badan dhegaysanno laakiin ficilkii muhiimsanaa ee waxaanoo dhanba sababayay inay fulaan aan qaban weyno meel lama gaarino marka ficilka ayaa muhiima peace